xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo wakiil ka ahaa xeer ilaaliye Axmed Cali Axmed ayaa maxkamadda darajada koobaad ee degmada Dhoble horgeeyay kiiska 7 eedeysane kuwaas oo ku eedeysanaa xaalufinta deegaanka gaar ahaan ugaadha deegaanka. xafiiska xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in maalmihii u dambeeyay ay soo laalaabanayeen kiisaska la xiriira leynta iyo xaalufinta lagu hayo ugaadha deegaanka, midaas oo horaan laga soo saaray baaq ahaa in ciddii lagu arko arrin sidan oo kale ah in sharciga la waafajin doono. dhinaca kale gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee degmada Dhoble Sheekh Maxamed Sheekh Siraaji ayaa eedeysanayaasha midkiiba xukunkiisa oo 2 sano ah goobta ka soo jeediyay. xukunkan ayaa noqon doona mid ay ku waansa qaataan kuwa badan oo falal noocan oo kale ah ku jira. xukun ku riday dambiilayaasha kala ah Isaaq Shaacir Xasan 19 jir ah ina hooyo Xabiiba Cabdi Qaasim ku dhashay Qansax. 2 Amiin Xasan Maxamed 30 jir ah ina hooyo Kadiya Isaaq Macalin ku dhashay Qansax. 3 Ibrahim Maxamed Isaaq 18 jir ah ina hooyo Miira Cali Ibrahim ku dhashay Qansax. 4 Salaad Xasan Janaaw 15 jir ah ina hooyo Janaay Abdow Maxamed ku dhashay Qansax. 5 Abshir Cabdi Imaan 23 jir ah ina hooyo Dayran Maxamed Isaaq ku dhashay Qansax. dambiilayaashan sare ku xusan waxay si sharci darro ah ku laayeen ugaadha deegaanka loo yaqaano Sagaarada oo ay 6 iyo 10 xabo ay ku dileen garuun iyo midiyo laguna soo qabtay iyaga oo falkii gacanta kula jira. sidaa awgeed waxay maxkamadda ku riday xukun maxkamadeed oo ah midkiiba 2 sano iyo ganaax lacageed aan ka yarayn $2,000. waxay maxkamaddu sidoo kale $1,000 oo ganaaxa ku xukuntay Cabdikariin Cabdullaahi Aadan oo 19 jir ah ina hooyo Farxiya Maxamed Isaaq ku dhashay Muqdisho kaasoo ahaa wadaha gaariga lagu soo qaaday Sagaarada. xukunkani waxay maxkamaddu u cuskatay qodobada kala ah 322 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo 562 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa dhinaciisa ka hadlay arrinkan gudoomiyaha degmada Dhoble Xasan Cabdi Xaashi hadalkiisina sidan ayuu dhacay. ciidkii dhammaan wixii ugaadhaha mataqaanay xaalufin lagu wado arrinta markaan aragnay waxaan sameynay ciidan deegaan oo madani ah oo arrinta la dagaalama sidoo kale dhirta xaalufinta la dagaalama. ilaahay maanta waxaa gacanta noo soo galay niman dambiilayaal ah oo falkii gacanta kula jira 16 sagaara ayagoo dilay oo kuwa takareeto ayaanu gacanta ku soo dhignay. markaan ku soo dhignay hore waxaan ka geynay maxkamaddu xukun bay ku riday muddo 2 sano ah ayay xukuntay. arrintaana insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa in ay wax ka tari doonto joojinta ugaarsiga sharci darrada dowladda Jubbaland iyo maamulka degmaduna insha Allah tacaala waxaa ka go'an in la dagaalamaan oo joojiyaan ugaarsiga sharci darrada iyo xaalufinta dhirta lagu hayo inta. arrintan waa laga shiray cabasho badan baa dowladda loo soo gudbiyay oo laga cabanayo dhirtii oo la jarayo iyo xaalufin mataqaana lagu wada ugaadhi. go'aan baa laga qaatay ciddii falkan ku lug yeelata inta 2 sharci waafaqsan laga qaado. xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Maxamed Sheekh Cusmaan ayaa kormeer ku sameeyay maxaabiista ku jira xirada booliiska ee degmada Dhoble isla markaana shakhsi u wareystay waxyaabaha ay ku xiran yihiin iyo xaaladahooda guud. Cabdinuur Xayi Xaash, Jubbaland TV.